war degdega beesha caalamka ayaa qaaday tallaabo culus oo ka dhana madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana tallaabadan si gaar ah u qaaday dowladda Mareykanka si cad ayay u yiraahdeen xasan sheekh iscazil shirkadda la yiraahdo Strike Global Development oo ah hay'ad la talin iyo diblomaasiyadeed oo fadhigooda uu yahay magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu iscazilo isla markaana dowladda Mareykanka ay cunaqabateyn saarto isaga iyo xubno ka tirsan qoyskiisa warkan waa dhacdadii ugu la yaabka badnayd xafiiskana si gaar ah madaxweyne Donald Trump ayuu kala shaqeeyaa ama shirkadan Global Development-siga markaasi ama Global andahada ee Diplomacy raalli ahaada Global Diplomacy weeye waana shirkad markaasi xafiiska madaxweyne Donald Trump oo qaabilsan dabagalka madaxda iyo sidoo kale madaxda ku takrifalka sameys xasan sheekh waxa leeyahay iscazil waliba adiga iyo xubno ka tirsan qoyskaaga waxa lagu saarayaa cunaqabateyn waa halkii ugu dambeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu wajahayaa xaalad khatar ah oo aan caadi ahayn kolkii hore jawigu wuxuu ahaa in looga yeero xalane lagu soo canaanto ama hadallo kulul lagu yiraahdo ama ugu yaraan Nairobi in loogu waco oo uu la kulmo beesha caalamka hadda intiiba waa la iskala tagay Trump ayaa u baxsanaya ninkan madaxweyne xasan sheekh maxamuud eedahan oo dhan sidee buu isaga dhaqi doonaa muxuu xalka noqon doonaa waxa kale oo il gaar ah ku eegayna safiirka Mareykanka iyo xubno ka tirsan jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa durba waxay qaadayaan tallaabooyin la xiriira dabagal madaxweynaha ayaa la fatashaya fuusta caadi ayaa loo riixaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay ciyaalka xaafaddu yiraahdaan haddaba sidee bay wax u socdaan waxaan ku soo gudbinayaa xog iyo macluumaad la xiriirta markaasi warkan soo baxay iyo ma laga yaabaa in xasan sheekh uu iscazilo iyadoo oo waliba maalmaha xorriyadda ay ku beegan tahay oo 26 Juun iyo 1 July ama 1 Luulyo loo dabaaldegayo oo 66 sano kor Soomaaliya ay xorriyada madaxdii Soomaalida ahaydna sidaan loola dhaqmayo aragtidaada qaybta commentiga noogu qor muuqaalka like share subscribe soo dheh channelka waa mahadsantahay shirkadda Strike Global Diplomacy oo ah hay'ad la talin iyo diblomaasiyadeed oo fadhigeedu uu yahay Washington DC ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu iscazilo isla markaana dowladda Mareykanka ay cunaqabateyn saarto isaga iyo xubno ka tirsan qoyskiisa kaliya iscazil iska bax shaqo kala raadsan ma iscazil kadibna adiga iyo xubno ka tirsan qoyskaaga cunaqabateyn lagu saaraya waa meeshii ugu dambeeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud hurdo iyo hoyaad midna ma laha leeyahay warkan Mareykan ka soo baxayna si weyn ayuu markaas u taabtay war-saxaafadeedkan waxaa saxiixay ninka lagu magacaabo Robert Strike oo ah aas-aasaha iyo gudoomiyaha shirkadda isagoo oo ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya ee eedeymo la xiriira musuqmaasuq ku takrifal awoodeed iyo in si khaldan loo isticmaalay gargaar caalami ah Mareykanku waxba kama dhintaan $1 oo isagu leeyahay haddii aad si khaldan u isticmaasho maalmaha kamid ah waad ka shalaayaysaa ninkan gudoomiyaha iyo aasaasaha ka ah shirkaddan wuxuu sheegay in baaritaanada ay diiradda saari doonaan eedeymo la xiriira in gargaar ay maalgeliyeen canshuur bixiyaasha Mareykanka oo ay ku jiraan barnaamijyada USAID iyo World Food Program oo loo soo gaabiyo WFP loo weeciyay dana gaar ah iyo shabakada siyaasadeed sida uu sheegay Robert Strike oo ah milkiilaha ama aas-aasaha shirkaddan la yiraahdo markaasi Strike Global Diplomacy war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxa uu xusay in dib u eegis lagu sameyn doono warbixino ku saabsan xiriir la sheegay inay jiraan inay u dhaxeeyaan dad la xiriirinayo madaxweynaha Soomaaliya iyo kiisas khiyaano oo ka dhacay bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka iyo sidoo kale xiriir lagu sheegay in qoyska xildhibaanad Ilhaan Cumar iyo xasan sheekh ay ka dhaxeeyaan waa fuusta halkii ugu dambeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud indhow taagaya waa u yaaban ninkan Robert Strike ayaa yiri diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha xorta ah ma hormari karaan haddii hay'adaha dowladda loo adeegsado kobcinta dana siyaasadeed oo gaar ah shacabka Soomaaliyeed waxay mudan yihiin hoggaan daahfuran iyo dowlad isla xisaabtan leh ayuu saacadu yiri ninkan wuxuu intaas ku daray in eedeymaha loo jeediyay madaxweynaha Soomaaliya ay yihiin kuwo culus oo u baahan in si dhab loo paaro isagoo sheegay mustaqbalka dimuqraadiyadda Soomaaliya iyo xiriirka ay saaxiibada caalamiga ah la leeyihiin in tani ay u tahay muhiim
maraykanka iyo saaxiibada kale iyo sidoo kale Soomaaliya tani waxay u tahay baa la yiri muhiim waana in la baaraa madaxweynaha ilaa ay hadda dawladda federaalka ee Soomaaliya wax war ah kama aysan soo saarin ama jawaab rasmi ah oo ku saabsan war-saxaafadeedkan ma diidin ma beeninin ma iska biriyeelin sidoo kalena ma isku cadeynin oo dawladdu wax wara lagama hayo sidoo kale war-saxaafadeedku wuxuu ka turjumayaa eedeymo iyo baaq uu soo jeediyay Robert Strike iyo shirkadiisa mana aha cadeyn rasmi ah mana muujin cadeyn rasmi ah oo eedeymaha aan si xaqiijinaya laakiin wuxuu sheegay inay hayaan nuqullo sidoo kalena uu codsanayo in cunaqabateyn la saaro madaxweynaha Soomaaliya iyo qoyskiisa kaliya Xasan Sheekh lama cunaqabateynaya macal qoyskiisa ayaa la cunaqabateynaya haddaba sidee baad u aragtaa warkan ka soo baxay Mareykanka dad badan oo Soomaaliyeed oo barta Twitter ama X oo qoraalkan lagu baahiyay ka falceliyay waxay sheegeen in xaaladani ay tahay mid dhaba isla markaana Soomaaliya ay ka jirto loona baahan yahay in la xisaabtamo madaxda Soomaalida haddaba madaxweyne Xasan Maxamuud isla xisaabtan dhaba ma wajihi doonaa maxayse Soomaaliya ka dhigaysaa in dalkii Soomaaliya madaxweynihiisii iyo qoyskiisii oo xaaskiisii carruurtiisa ku jiraan cunaqabateyn la saaro Soomaaliya maxay uga dhiganta aragtidaada noo reeb in uu u xiran yahay diirshe amar ka soo baxay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi taasi oo ah sharci darro in qof muwaadin ah oo aan loo keenin warqad waaran maxkamadeeda la iska afduubto kadibna qol mugdiya lagu xirto runta haddii aad sheegto macnaheedu ma ahan in lagu xiro haddii diirshe la xiro wariyaasha kale la xiro wariyaal fara badan oo kale ayaa jira oo runta sheegaya ilaa iyo inta wariyaasha dhammaantood laga xiray marka koowaad mar labaad ilaa mar saddexaad waxaan leenahay waxaan codsanaynaa in xuriyadiisa si degdeg uu ku helo bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan u joognaa inaan ka hadalno xariga wariye Cabduqaadir Abuukar Cali Diirshe oo maanta ciidamo ka tirsan booliiska dawladda federaalka Soomaaliya ay ku xireen magaalada Muqdisho waxaan marka hore aad uga xunnahay xarigaas loo geystay wariye Diirshe oo ka tirsan warbaahinta Somali Stream ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho waxa sidoo kale aan halkan u joognaa in aan dalbanno in si shuruud la'aan loo sii daayo suxufigaas oo ku xiran sida aan xogta aan helnay ay sheegayso saldhig ku yaala degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho maadaama waayidii la soo dhaafay cagajugleyn iyo handadaada ay la kulmayeen suxufiyiinta Soomaaliyeed tan waxaan rumaysanahay inay qayb ka tahay cagajugleynta iyo handadaadaha ka dhanka ah suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Muqdisho ka hadalka arrimaha taagan gaar ahaan dhacdooyinka jira ma jirto meel dambi ay ku noqotay oo suxufiyiintu lagu xiri karo ama lagu iqaabi karo labada midno saadaradeed waxa inoo muuqata in dawladda federaalka Soomaaliya aan marnaba xushmeyn xuriyadda hadalka maadaama ay qaadayso tallaabooyin ka dhana xuriyadda saxaafadda si gaar ah waayidii la soo dhaafay Diirshe waxaan nagu maqaalaa inuu la kulmayay handadaado iyo cagajugleyn sidoo kale waxaan maqalnay ka hor inta aan la xirin wariye Diirshe oo Somali Stream ka tirsan in jirdil xoogan loo geystay saadaradeed waxaan dalbanaynaa oo aan dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbanaynaa in xuriyadiisa la siiyo Diirshe oo kamid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed oo waayidii ugu dambeeyay ka hadlayay dhacdooyinka waaweyn ee dalka ka jira isla markaana ay ku xirnaayeen tiro badan oo muwaadiniin ah oo xogsugiyaal ah mar kale waxaan cambaaraynaynaa falka maanta lagu xiray wariye Diirshe waxaana tusaale u tahay arintan in loo soo socdo suxufiyiin badan oo Soomaaliyeed oo ka howlgala magaalada Muqdisho dibiga qal weesh xuquuq qaadatay marnaba ma aqbalayso saxaafadda Soomaaliyeed oo u dhabar adeegaysa ka hadalka iyo xaaladaha ka jira dalka saadaradeed dawladdu waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay ka baaqsato xariga joogtada ay suxufiyiinta iyo cagajugleynta suxufiyiinta loo markaasi ka dhanka waxa sidoo kale jira tiro badan oo suxufiyiin ah oo ka cararay guryahooda meel kala duwan markaasi ku sugan iyagoo ka cararaya hanjabaado iyo waliba xarig looga hanjabay saadaradeed lama qabato maadaama aan nahay suxufiyiintii safka hore kaga jiray halganka loogu jiro in dimuqraadiyad la helo dawlad wanaag la helo nabadna la helo saadaradeed dawladda sii deyso si shuruud la'aan waxa jira suxufiyiinta qaarkood oo arintan ka hadli karo oo ka hadli doono oo iga dambeyn doono bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay ayaa mahad iskale noo suurtageliyay inaan isugu nimaadno kulankan aan ku cambaaraynayno xariga sharci darrada ah ee loo geystay saaxiibkeen wariye Cabduqaadir Abuukar Cali Diirshe
wariyaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho sanadihii iyo bilihii la soo dhaafay waxa ay si guud wajahayeen caqabado amni iyo dhibaatooyin dhinaca xadidaadda xorriyatul qowlka ah oo dawladda oo hadda waqtigii ka dhamaaday ay doonayso inay ku aaminsido si aan loo soo bandhigin duruufaha adag ee ka jira dalka iyo xaaladaha kala guurka ah ee Soomaaliya ay wajahayso xariga diirsho loo geystana waxa uu daba joogaa dhacdooyinkaas aamusinta ah ee ay ku howlan tahay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana loo sheegay in diirsho lagu xiray saldhigga degmada Yaaqshiid markii horena laga qabtay degmada Waaberi oo deganaay ma garan karno sababta Yaaqshiid lagala doonay iyadoo laga qabtay Waaberi waana mid kamida dhibaatooyinka ay saxafiyiinta iyo bulshada caasimadan la kulmaan taasi oo ah in la xanuunjiyo laguna tacadiyo qofka muwaadinka ah xuquuqdiisii asaasiga ahayd ee uu lahaa ilaa ay hadda diirsho looma ogolaan teleefankiisii gacanta sidoo kale ehelkiisii wax wargelina oo ay ka heleen malahan sida uu u xiran yahay iyo goobta uu ku xiran yahay waxay noo sheegeen saraakiisha ammaanka qaybo kamid oo aan la hadalnay in uu u xiran yahay diirsho amar ka soo baxay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi taasi oo ah sharci darro in qof muwaadin ah oo aan loo keenin warqad waaran maxkamadeeda la iska afduubto kadibna qol mugdiya lagu xirto waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed ay xusayaan maalmihii xorriyadda 66 sano guuridii ka soo wareegatay markii ay Soomaaliya xor noqotay laakiin haddii aan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ugu horeeyaan suxufiyiinta iyo kuwa u ololeeya xuquuqda aadanaha uma muuqato xorriyad ay dadka Soomaaliyeed maanta u dabaaldegi karaan oo dalka ka jirta waxaan xasuusanayaa tuduc ku jirtay gabay oo lahaa abwaan weersame oo ahayd gumaysigu nin dool kuugu yimid gibil cad uun maaha haddii aadan hadli karin oo aadan soo bandhigi karin duruuftaada nololeed ee taagan oo ay awoodii systemkii iyo manfacii mujtamaca Soomaaliyeed ka dhaxeeyay ay shakhsiyaad isku koobeen haddana wariyihii ka hadla ama qofkii dhalinyaro ah ee soo bandhiga xabsiga lagu hubsanayo waxa aan isleeyahay inaysan jirin xorriyad waafiya oo aanu maanta u dabaaldegno inaysan dalka ka jirin kaliya gumaysigii gibilka cadaay oo baan iska dulqaadnay laakiin kuwa noo eg ayaa maanta waxa ay rabaan inay nagu gumaystaan awoodii iyo systemkii inaga aan u dhiibanay arrintaasna aadan u cambaaraynayna waan ka xunnahay waxa aan leenahay diirshe waa muwaadin suxufi Soomaaliyeed ah kama aanu hadlin wax ka baxsan dhibaatooyinka ay bulshada Soomaaliyeed wajahayaan oo ugu horeyso dhibaatada Muqdisho maanta ka jirta jidadkii xirmay ee ay biyuhu degeen ee dadka Soomaaliyeed ay la dhibaataysan yihiin sidii u geli lahaayeen garoonka diyaaradaha kadibna xataa loo diidan yahay inay lugeeyaan oo meel kasta lacag looga dhigay waxaan codsanaynaa in diirsho oo xorriyadiisa helo sida ugu dhaqsiyaha badanna haddii uu dambi leeyahay ee loo ogolaado in maxkamad la horgeeyo oo uu qareen qabsado oo nidaam sharciya la marsiiyo inkastoo ay dadka Soomaaliyeed tuhmo badan ka qabaan nidaamka garsoorka ee dalka maanta ka jira iyo sida ay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud faragelinta qaawan ugu sameeynayay bilihii la soo dhaafay haddii aan nahay suxufiyiinta Soomaaliyeed waxaan leenahay nalama aamusin karo cod xor ah oo mujtamaca Soomaaliyeed dhexdooda ka daaran ayaan nahay mana doonayno in naloo adeegsado jujuub lacago iyo sidoo kale awood ciidan intaba haddii uu diirsho maanta xiran yahay aniga ayaa taagan oo hadlaya Bashiira taagan Juula taagan haddii ayaga dhan la xirana kuwa kala soo bixi doona bulshada Soomaaliyeedna maanta ayada dhan ayaaba wada wariye ah oo meel kasta waxa uu qof walba istaa telefoon smart ah dhacdooyinka aad leedihiin qariyana guryihiina ay idinkugu imaan doonaan iyaga oo duuban oo waliba loo duubay si ka fudud sida ay wariyaashu wax soo gudbiyaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim innagoo ah suxufiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Muqdisho dhammaanteen waxaan si adag u cambaareynaa xariga magaalada Muqdisho lagu geystay wariye Diirshe Cali oo ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala magaalada Muqdisho gaar ahaan warbaahinta Somali Stream Diirshe ayaan sidaan xogta ku helnay wuxuu ku xiran yahay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir
waxa uu u xiran yahay sida xogihii ugu dambeeyay aan ku helayno taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir wariyaha xorriyadda saxaafaddu waxaa qalad ah in la caburiyo wariyaha Soomaaliyeedna waxa uu xaq u leeyahay inuu runta sheego wax walba ay noqoto wariye Diirshe Cali jirdil ayaa loo geystay sida xogihii ugu dambeeyay aan ku helayno isagoo dhibaatooyin kala duwan ku wajahaya xabsiga marka waxaan codsanaynaa codkeena ku biirinaynaa dhammaan madaxda ugu sareysa ee dalka hay'adaha dawladda iyo garsoorkaba guud ahaan in wariye Diirshe Cali dib loo siiyo xorriyadiisa shuruud la'aan ah haddii uu dambi leeyahay hay'adaha cadaaladda la horgeeyo maalmihii ugu dambeeyay waxaa badanaysay in wariyaasha magaalada Muqdisho qaarkood inta la xiro maalmo ay xabsi ku jiraan kadibna iyagoo maxkamad aan la saarin la iska soo daayo bil 2 bil ilaa 3 bilood inta uu xirnaado qofka saxafiga ah magdhow iyo wax uu u baahan yahay aan la siin marka waxaan mar koowaad mar labaad ilaa mar saddexaad ba ku beerinaynaa codkeena in sida ugu dhaqsiyaha badan uu wariye Diirshe Cali u helo xorriyadiisa wariyaha Soomaaliyeedna waa xor runta haddii aad sheegto macnaheedu ma ahan in lagu xiro haddii Diirshe la xiro wariyaasha kale la xiro wariyaal fara badan oo kale ayaa jira oo runta sheegaya ilaa iyo inta wariyaasha dhammaantood laga xiray marka mar koowaad mar labaad ilaa mar saddexaad waxaan leenahay waxaan codsanaynaa in xorriyadiisa si degdeg uu ku helo wariye Diirshe بسم الله الرحمن الرحيم runhaantii waxaan ka xumahay oo aad u cambaareynayaa xariga loo geystay wariye Diirshe oo kamid ah bahda Somali Stream waxay muujinayaan in saxaafadda Soomaaliyeed gaar ahaan saxaafadda Muqdisho la caburinayo oo dawladdu ay doonayso in ay ku tumato dastuurka isla markaana ay dhaawacdo xeerka iyo xorriyadda Soomaaliya dhab ahaantii wariyaasha Soomaaliyeed si weyn ayay u garab istaageen dawladnimada Soomaaliya kuwa dhintay iyo kuwa noolba way taageereen haddii noqoto argixisada in la dagaalamo haddii noqoto horumarka dalka in laga shaqeeyo waxa laga yaabaa wariye saaka ka hadlayay arrimaha waxbarashada Soomaaliya ama horumarka Soomaaliya ama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku taageerayay arrinta doorashadiisa in maanta erey dhariila uu qoro taasna loo xiro runhaantii waxay muujinaysaa heerka ay marayso caburinta dawladda Soomaaliya ay ku hayso saxafiyiinta Soomaaliyeed runtiina aad baan uga xumahay wariyaasha waxaan u soo jeedinayaa oo aan leeyahay waxaa jiray saddexda dibi oo midba maalin la cunay marka maalinkii xafiid la xiray haddaan dhammaanteen aqbali lahayn in aynu ka aamusno waxa dhici lahayd dhammaanteen in xabsi maanta ku wada jirno laakiin nasiib wanaag maanta mid kamid ah ka xiran waxaan rajeynaa in ninkaas odayga ee Diirshe ee maanta la xiray in degdeg loo soo daayo waxaan ugu baaqayaa hay'adaha caalamiga gaar ahaan kuwa u dhaqdhaqaaqa saxaafadda caalamiga inay taageeraan sidii codkooda ku taageeraan sidii loo sii deyn lahaa saxafiga Soomaaliyeed ee Muqdisho ku xiran runtii saxafiyiinta Soomaaliyeed dhibaato badan bay ku shaqeeyaan waxay ahayd dawladda Soomaaliya inay u garowdo oo ay aragto horumarka iyo nabadda ay ka shaqeynayaan laakiin nasiib darro maalin kasta saxafiga Soomaaliyeed baa la xirayaa wax la aqbali kara maaha dawladda waxaan ugu baaqayaa inay ixtiraamto dastuurka dalka gaar ahaan qodobka 18aad oo dastuurka la isku raacsan yahay laguna kalsoon yahay kaasoo dhigaya in saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo saxaafaddu xor tahay saxaafaddu dambi maaha suxufiyiintuna dambiilayaal maaha aad baa u mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو صحفيينتي مدح بنانا كهول جلي عاصمة دلك مقدشة وحنا قلبت هالكان أتاجنا هاي إن أنا عد داير كل سنة أو أنا جرب استعجنه ولكن عبد القادر أبو بكر علي ديرشي أو أهانين نجتر سن إسلام كان كم يدها صحفيين تكهول جل مقدشة كاس أو مانتا إذا ما كتر سن بوليس كسومالي يسيد الله شيء أي كقبتين يسقوا شغدي يسقوا الصعدة برتمها عاصمة مقدشة sida la sheegana hadda ay ku hayaan oo uu ku xiran yahay saldhigga degmada Yakshiid ilaa iyo hadda inagu ma ogin Diirshe waxa loo haysto laakiin sida booliisku sheegeen oo uu taliyaha qaybta guud ee booliiska Macalin Mahdi ku sheegay bartiisa qoraal uu ku soo qoray wuxuu ku eedeysan yahay yani inuu u gefay laamaha garsoorka ee dalka haddii ay noqotay shaqadii suxufigu haddii uu runta sheego oo uu wixii jira ka hadlo in yani ay dhibaato ku tahay hay'adihii dawladda sida dawladdii ay u dhigayso runtii waa caqabad inteeda la eg iyadoo aan ognahay in suxufiyiinta Soomaaliyeed ee si gaar ah ugu sugan caasimadda in waqtiyadii la soo dhaafay ay wajahayeen dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira in laga hor istaago inay xogihii si madax bannaan u helaan in magaaladii ay suxura ku maraan iyo in ay yani ka soo shaqeeyaan waajibkoodii gutaan marka waxaan cod dheer ku leenahay suxufigu waa dastuurka dalkaas siiyey inuu si madax bannaan shaqadiisa u guto sidaa daraadeed walaalkeen Abuukar si degdega oo bilaa shuruudaha loo sii daayo haddii uu dambi leeyahana si cad oo degdega maxkamadaha iyo garsoorka dalka loo horkeeno hana lagu cadeeyo wixii loo haysta ninka walaalkeena waxaan hore u aragnay in dhowr saxafi sidaan oo kale loo xiray kadib markii la iska daba meermeeriyay oo waqti badan laga cunana ugu dambeyntii maxkamadii la keenay
kadibna ay beri yeeshay oo eedihii xeer ilaalinta iyo booliisku ay u soo jeediyeen yacni ay noqon waayeen wax jira sidaa daraaddeed in suxufiga lagu dhibaateeyey shaqadiisa marna yacni ma aqbali karno sidaa daraaddeed walaalkeen xorriyaddiisa inuu degdeg u helo ayaan u rajaynaynaa codkeenna ayaanan ku biirinaynaa waa mahadsantihiin